qaabkee loo sameeyaa Gmail. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube-ka Moodeexeeye. Magacaygu waa Maxamed Salmaan Cusmaan. Maanta waxaanu samayn doonaa qaabkee loo sameeyaa Gmail. Gmail maxaan ka wadaa in la sameeyo? Yacni waxaan ka wadaa Gmail inaad samayso. Dadka qaar ma yaqaanaan qaabka Gmail-ka loo sameeyo. Sidoo kale sida Gmail-ka loo maamulo ma yaqaanaan. Waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo Gmail moobladooda kaga xiran yahay, isla markaana aanay garanaynin Gmail-ada password-doodii iyo Gmail-kaasi waxa uu u qabto. Laakiin Gmail-ku marka moobilkeena loo eegayo waa address, waa secure. Dhan kasta Gmail la'aan shaygu ma shaqeeyo. Device-ku marka uu qofka isticmaalayo waxa muhiim ah inuu Gmail leeyahay. So waxaanu samayn doonaa imika Gmail baynu u samayn doonaa account-keenan. Waxaanu leenahay waxaanu tegaynaa halkan, kadibna waxaan ku qoraynaa Google account. Google account. Markaan Google account qorno waxaan tegi doonaa Google account ama sign in. Waa isku mid labadani. Google account haddaad tagto iyo haddaad sign in tagto waa isku mid, isla halkii unbuu ku geynayaa. Waxaanu leenahay create account. Waxa ku soo bixi doonta daaqadan yar. Waxaad gelinaysaa first name-kaaga iyo last name-kaaga. Waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale waxaan u bixinayaa anigu YouTube-kan. Waxaan leeyahay Mo YouTube channel. Qaabkaas adigu waxaad doontaad ku qoran kartaa sababtoo ah Gmail-kaaga. Waxaan leenahay next. Waxaan sixi doonaa date-ka April. Waxaan leenahay waxaan gelin doonaa tan 3deedii. Sanadkuna waa iska macmalo. Waa sanadkii aad dhalatay baad gelinaysaa. Kadib gender-ka dooran doontaa. Waxaan leeyahay male. Waxaan leeyahay next. Intaa kadib markaan soo dhaafno qaybtan aynu imanaynaa. Qaybtii hore waxay ahayd waa inaad magacaaga geliso iyo date-ka iyo taariikhda aad dhalatay. Halkan waxaan ka samayn doonaa username-ka. Qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan. Waa qaybta aad Gmail-kaaga inta badan aad u isticmaalayso marka aad mail gelinaysid, marka aad website gelinaysid. Qaybo badan si kastaba aad u isticmaashid. Marka aad doonaysid inaad isticmaasho user ahaan qaybtan weey. So marka user-ka inaad hagaajiso labadan sare way khaldan yihiin oo la isticmaal marmariyay number la ugu daray inaad hagaajiso ama inaad kuwa sare qaadato waa option adiga ku yaal. Waxaan leenahay next. Inta marka aan qorno kadibna wuxuu noo gudbinayaa qaybtii password-ka. Waxa laga doonayaa inaad abuurto strong password adag ama password aan loo gudbi karayn. Waxaan gelinayaa tusaale ahaan oo kale password aan anigu leeyahay. Qaybtan buu ina keenayaa waxa weeyaan numberkii baad gelinaysaa. Marmarka qaar waxa uu sameeyaa skip oo waa iska dhaaf karaysaa. Sometimes ka qaarna waxa khasab ku noqonaysa in aad samayso number geliso. So markaa numberkaygan gelinaya. Code buu ii diray. Numberkii markaan geliyay code-kana soo baxay. Waxaan leenahay next. Waxa uu ku leeyahay samee recovery. Recovery-gu yacni haddii Gmail-kaaga ama password-kiisa aad garan weydo oo dibadda uu ka jiro dee uma diri karaysid code. Sabab mid recovery ah wax xasuusato buu code-ku ugu diray. Marka halkaas aad gelinaysaa. Haddii aanad u baahnayna waxaad oranaysaa escape. Markaan waxaan leeyahay escape imika uma baahan. So kaimka Gmail-kaygii aan sameeyay. Waxaan leenahay next. Waxaan leeyahay agree. Gmail-kii waan dhamaystirnay oo waxaan u dhamaynay qalabkiisii oo dhan. Gmail-kayga hadaba sidaas uu kugu dhan yahay. Halkaa waa ka yimi Mo YouTube channel. Username-kiina waa kaas. Qaabkaas ayaa loo sameeyaa Gmail cusub.
channelka haddaad ku cusub tahay nagu soo biir muuqaalkan loo like garee waad mahadsan tahay.